wasiiradda caafimaadka Itoobiya Dr. Magdas Dawa ayaa sheegtay in doorka hawlgalayaasha caalamiga ah iyo daneeyayaasha gudaha ay yihiin kuwo aad muhiim ugu ah xoojinta helitaanka adeegyada caafimaadka ee dalka. Wasaaradda caafimaadka ayaa kulan wada tashi ah la yeelatay hawlgalayaasha si ay uga wada hadlaan daryeelka caafimaadka hooyada, carruurta iyo dhalinyarada, iyada oo xustay in dowladda Itoobiya ay si gaar ah diiradda u saarayso helitaanka caafimaadka, ayna guulo waaweyn ka gaadheen daryeelka hooyada iyo carruurta, taas oo ay gacan weyn ka geysteen ballanqaadka dowladda iyo taageerada joogtada ah ee la hawlgalayaasha. We are having also the private sector, the governmental organizations, and new platforms where everyone is now talking around public-private partnerships. Waa in shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo la hawlgalayaashu ay xoojiyaan hawlahooda ay la qabtaan dowladda. Tani waxay gacan ka geysanaysaa in shaqooyinka mustaqbalka si ka wanaagsan loo fuliyo, maadaama taageerada aad hadda u muujinaysaan shaqooyinka wadajirka ah ay tahay mid sare. Waxaan idinka codsanayaa inaad sii xoojisaan iskaashiga go'aanka leh si loo gaadho guulaha la hiigsanayo mustaqbalka. Kusimaha safiirka Netherlands ee Itoobiya iyo isuduwaha dhaqaale ururinta ee la hawlgalayaasha Christina Pren ayaa sheegtay in guulaha Itoobiya ka gaarayso waaxda caafimaadka ay yihiin kuwo lagu dhiirigelinayo. Waxa ay si gaar ah u sheegtay in hawlaha lagu hubinayo helitaanka adeegyada caafimaadka ay yihiin kuwo rajo gelinaya. Waxa ayna tilmaamtay in dhammaan la hawlgalayaasha ay xiiseynayaan inay xoojiyaan hawlaha la qabanayo, iyadoo si gaar ah u xaqiijisay in dadaalada la midka ah ee dhaqaale ururinta iyo taageerada ay sii socon doonaan. We are in this still together, this whole transformation of having more and more own budget for the healthcare services. That transformation, you can count on the donor partners to go. Waxaan xaqiijinayaa taageerada ay la hawlgalayaasha ka geysanayaan maalgelin dheeraad ah iyo taageero la mid ah si waaxda caafimaadka loo gaarsiiyo heerar sare si ay u sii xoogaysto.